مريم way cabsatay. Maryam waxay dhahday, Ilaahay aan kaaga magan galay. Haddii aan ahay qof alle ka cabsanaayo. Jibriil wuxuu dhahay, ha igu cabsanin Maryam, waxaan ahay malag Jibriil. Aniga waxaan ahay qof Ilaahay kuu soo diray si aan kuu siiyo wiil oo taahir ah oo nadiif ah. Maryam waxay dhahday, sidee wiil aad igu siinaysaa anigoo qof i taawanin oo qof ila kulmin? Jibriil wuxuu dhahay, Ilaahay ayaa kugu talagalay inuu wax ku siiyo. Ilaahay wuxuu rabo ayuu samaynayaa. Ilaahay wuxuu rabo kun fayakuun ayuu ku dhigaa. Ilaahay wuxuu kugu bishaareeyey wiil oo la dhaho Ciisa bnu Maryama. Cunugaasni oo noqonaayo adduunyo iyo aakhira dadka ugu fadli badan. وخافت مريم وقالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. فقال لا تخافي يا مريم مني فأنا جبرائيل. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين إن الله يفعل ما يشاء إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. مريم maxaa ku daari saacadahan socdid maxaa kugu dhacay khayr ma jiro seed sigiriyaa ku sugooyaa tartiibkaaga u soco dadna aku arkin مريم وصدقتي بمحاك وقلع قبليدي وقت حنا سعطاء محاك سهلي يشاك بمحاجرة يا هومقو شاك كان خاضبه شاكيغ خاضو لقصو خير لما جرو سبحان الله محاكو داري مريم مجرين تاي intee u baxaynaa magaalada jaliil waa inaad qaadataa cunto oo jidmar ah rabi wax dhib inaa kugu dhaco darteyda iyo inaad dareento wax dhib ah iyo inaa aad murugtid laakiinka maxaa waad dhahoosid maxaa waaye dhibkaan oo aad sheegoosid oo sababtaane ku imaanayo ii sheeg maxaa dhacay maxaa kaaga oosiyey gabadhaydii ooyintaada qalbigayga ayaa hurina
ee reeb ooyinta iska dhaaf iska jooji ooyinta adiga ma tihid qofna keenaayo ceeb waan kugu faana aniga awoowe aniga inaa waxay sheegtid ma rabtaa gabadheedii hadal سيد زكريا سيد زكريا سك وحير سك سيد سكار وحو أمر كبحيي قف مقالة كبحايا ما جرى إلا أمر كسوي aloor adiga maxaad qaadanay amarka oo sayid hilaan maad qaadanaysaa mase amarka oo sakaar ii sheeg bayaa qaadan amar meeshaad qaadanaysaa xaaladda maryam caawa wax cajiib ayaan ku arkay aniga markaan fiiriyey socodkeeda iyo qaabkeeda waxaa eg yahay naag uur leh jooji hadalka marin uuraa leedahay see u dhehaysaa beenaa ka sheegin afkaaga suubso aniga waxumaa dhahay run lee sheegay bis waa ku tuuga naga aamus cunugeyga dalac ahaay xabiibigeyga ahaay cuntadaada waa ku sii haddii ii jiifo bageygaan ku gashanaa waan ku jeclahay xabiibigeyga tahay ii jiifayaa baari jiifo sidaan ugu sheegaa zakariya iyo elisabat inaan uur aan leeyahay maxayna igu jawaabi doonaan maya ma awoodi inaanu sheego yaa rabbi aniga waxaan ahay qof umudaada ka mid ah oona daciif ah howlka aadaneh oo awood ku lahaanin kaligaada ayaan ku tala saaranaa yaa rabbi sideen ku awoodaa anigoo cunugaan aan wato oo aan aado reer bani israa'iil agtooda haddii i weydiyaan cunugaan intee ka keentay sidee ugu jawaabi doonaa qof ii naxariisanaayona male waana igu tuhmaayaan cunugaan waa ina baxa oo aan aadaa meel dheer oo dad dhani arkeenin filimkan waxaan ku turjunay stuudio saafi oo ku yaala dalka talyaaniga gaar ahaan magaalada Padova